برنامجka maanta waxaan ku eegi doonaa shirka maalinta Jimcaha ka dhacaya Alaska Mareykanka oo dhaxmarayo madaxweyne Trump iyo Putin shirkan Trump aad ugu faraxsan yahay inuu dhaco sidoo kale Putin aad u soo dhaweeyay meesha lagu shiraayna waa dhul taariikhi waqtiga hore waxay ahaan jirtay gobol ka tirsan Ruushka Mareykanka ka iibsaday oo waxay noqotay dhul Mareykan waa dhul istiraatiiji ah sababta Trump u doortay Putin sababta uu rabo ma soo galaayo gudaha Mareykanka waa cirifka ama cornerka Mareykanka marka way u fududahay inuu imaado barnaamijka waxaan ku fiirin doonaa mar walba oo dhibaato dhacda adduunyada guruba faa'iido guruba khasaaro guruba tanasulo marka waxaan fiirin doonaa faa'iido ugu jirta Ruushka Mareykan Europe iyo Ukraine marka hore aan ku hormarno Ruushka madaxweyne Putin iskama imaanaya Alaska barnaamij la soo gurfeeyay laga soo fikiray u badan tahay in lagu soo heshiiyay alla keenaa marka meesha waxay noqon doontaa meel waxyaabo lagu saxiixdo khudbad yar laga jeediyo waa barnaamij already la soo jilciyay laga soo shaqeeyay marka Putin waxa miiska u saaran gobolada uu qabsaday inuu la wareego Trump waxa miiska u saaran in meeshan lagu heshiiyo laakiin aan Europe iyo Ukraine laga casuumin sida uu sheegay Ruush iyo Mareykan go'aan gaaraan kadibna loo gudbiyaa Ukraine iyo Europe waxyaabaha lagu heshiiyay kadibna saa ay ku ansixiyaan Mareykan wuxuu faa'iido ama Trump inuu heshiis keenay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka soo kale wuxuu rabaa khayraadkaas ku jiro Ukraine sida heshiiska hore uu la galay inuu si amniya buuqlaan dagaal aan ku qaato Putin saa sheegnay goboladan Afruushka ku hadluu rabaa Mareykan waxay rabaan dhaqaalahaas ama macdanta ku jirta Ukraine si nabad ah inay ku gurtaan Trump wuxuu rabaa in Nobel Peace Prize saa ku helo Ukraine waa qofka kaliya khasaaray shirka waxa looga hadlaa miiska saaran Ukraine madaxweynaha Ukraine waa loo diiday inuu ka soo qayb galo marka taas ugu filan ayaan daro Zelensky iyo madaxda Ukraine Europe dhaqaale fara badan ka galay dagaalkan wadamo fara badan ku fakhriyay qaxooti fara badan Europe soo galay wayna filaynin wadan dhan oo Ukraine la dhahay 100 sano dib u celiyeen maanta waxay taagan tahay shirka kama soo qayb galaysaan go'aanka marqaati ka noqon doonta leeyahay soo sheegi doona marka waxa islaayahay Europe wax badan waxyaabihii wadamada fakhriga Afrika Asia kula dhaqmi jirtay maanta iyada lagu la dhaqmaa oo dhibaatada ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirto qaybsanaantan faraha badan leh wareerkan siyaasadeed jahwareerka waxa qayb weyn ka ah Europeanka oo ninka madaxda ka ah Europe u qaabishan Soomaaliya maalin Garowe ka daga maalin waxa way Muqdisho maalin Hargeysa maalin Kismaayo maalin inta runtana uma sheego kulli ninka u tago u nacamlaya hawshana sidii ku socotaa ma dhahayo ma taqaana waxan macquul ma aha iyaga haday rabin wanaag iyo horumar asagana lama jeclo marka lugooyada ay ku hayeen wadamada Afrikaanka sida Soomaaliya maanta iyaga lagu haya Yurub dhaqaale xumo qaxooti fara badan maciishada nolosha kor u kacday Ukraine oo 100 sano dib loo celiyay intaasi ka faa'iiday dagaalkan marka commentigaad waa muhiim waxa ay kula tahay aniga waxa aaminsanahay Trump inuu rabo in sumcad iyo magac ku sameeysto nimankaana ay rabo inuu rabo kaar inuu marsiisto Ukraine saa ku dadasho dhaqaalaheeda iyo hantideedii Ruushkana la siiyo goboladaas degmooyin yar waxa jiro oo dad Ukraine ku nool yihiin ka qaxeen oo Ruushka haystaan kuwaasna waxa la soo marsiin doonaa Ukraine iyagoo iska degmooyin yar laakiin gobolada la sii doonaa Ruushka commentigaada insha Allah waa muhiim